haddaba hormoonkan loo yaqaan AMH ama anti-mullerian hormone wuxuu noo cadeynayaa in aan ogaano tirada ugxaanta dumarka u keedsan oo inta badan baaritaanka hormoonadan waxaan dirsanaa marka aan rabno inaan ogaano bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa hormoonka muhiimka ee loo yaqaan AMH ama anti-mullerian hormone ayaan ka hadli doonaa insha Allah inta aan u gudgalin muuqaalkeena waxaan si gaar ah kaga codsanayaa inaad YouTube channelkan subscribe noo saartaan Facebook page-keena follow soo tiradan haddii ay su'aal qabtaan qaybta hoos comment nagu dhaaf waa idin soo jawaabi doonaa insha Allah haddaba hormoonkan loo yaqaan AMH ama anti-mullerian hormone marka aan ka hadlayno dumarka hormoonkan waxaa laga soo deeyaa keedka ugxaanta ama waxaa soo daayo unugyada loo yaqaano ovarian granulosa cells haddaba baaritaanka hormoonkan waxaan dumarka u dirnaa marka aan rabno inaan ogaano tirada ugxaanta u keedsan dumarka baaritaanka hormoonkan dumarka waxaan u dirnaa marka aan rabno in aan ogaano daawooyinka dhalmada dumarka aan u qornay in ay shaqeeyeen tusaale ahaan daawo ayaa dumarka loo qoray oo dhalmada kor u qaadayso marka si aan u ogaano daawadaas in ay shaqeysay iyo in kale waxaan u dirsanaynaa baaritaanka hormoonkan loo yaqaano AMH-ka sidoo kale baaritaanka hormoonkan dumarka waxaan u dirnaa marka aan rabno inaan ogaano dumarka haddii ay u dhowdahay da'da dhalmagooynta waxaan u dirnaa baaritaanka hormoonkan loo yaqaan AMH-ka ama anti-mullerian hormoonka sidoo kale baaritaanka hormoonkan dumarka waxaan u dirnaa markii aan rabno inaan ogaano dumarka in ay qabaan burbiyood iyo in kale sidoo kale baaritaankan dumarka waxaan u dirnaa marka aan ka shakino kansarada ku dhaco keedka ugxaanta waxaan u dirnaa baaritaanka hormoonka AMH-ka tusaale ahaan dumarka qabo burbiyoodka waxaa la arkaa inuu hormoonkan aad u bato sidoo kale dumarka qabo kansarada ku dhaco ugxaansidayaasha waxaa la arkaa inuu hormoonkan aad u bato haddaba normal ranjiga hormoonkan waa sidan tusaale ahaan dumarka da'dooda markay u dhaxeyso 20 sano ilaa 25 sano waxaa la rabaa inuu ahaado 4.23 nanogram per ml inuu ahaado ayaa la rabaa waana xilliga ugu badan yahay hormoonkaas dumarka waana xilliga ay ugu badan tahay tayada ugxaanta iyo tirada ugxaanta dumarka sidoo kale dumarka markay jiraan 25 sano jirka ilaa 30 sano waxaa la rabaa inuu hormoonkaas noqdo 3.48 nanogram per ml inuu noqdo ayaa la rabaa sidoo kale dumarka markay da'doodu jiraan 31 ilaa 35 waxaa la rabaa inuu hormoonkaas noqdo 2.43 nanogram per ml inuu noqdo ayaa laga rabaa sidoo kale dumarka markay jiraan da'da 36 ilaa 40 waxaa la rabaa inuu hormoonkaas noqdo 1.28 nanogram per ml inuu noqdo ayaa la rabaa sidoo kale dumarka markay jiraan 40 sano ilaa 44 sano waxaa la rabaa inuu ahaado hormoonkaas 1.5 nanogram per ml haddaba badashada hormoonkaas waxay cadeynaysaa xaalada caafimaad darro oo jirka ka jira tusaale ahaan haddii hormoonkaas ka bato xaddiga normalka ah waxay cadeynaysaa ama waxay noo qeexaysaa inay jirto cilado tusaale ahaan inta badan markuu hormoonkaas aad u bato waxay cadeynaysaa xaaladda loo yaqaano burbiyoodka sidoo kale wuxuu cadeynayaa kansarka ku dhaco ugxaansidayaasha haddaba hormoonkaasi haddii uu noqdo mid aad u hooseeyo waxay noo cadeynaysaa in ay yar tahay tirada ugxaanta dumarka haddaba sidee lagu badin karaa marka haddaba dumarka uu ka yar yahay hormoonkan waxaan rabaa inaan siiyo talooyin haddaba talooyinka lagu badin karo hormoonkan waxaa ka mid ah nafaqada muhiimka ee loo yaqaan vitamin D haddaba vitamin D wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa caafimaadka ugxaansidayaasha wuxuuna sare u qaadaa dhalmada dumarka sidoo kale wuxuu aad u badiyaa hormoonka loo yaqaan AMH-ka haddaba daraasado badan oo hore loo sameeyay waxay cadeynaysaa inuu xiriir ka dhaxeeyo hoos u dhac hormoonkan iyo hoos u dhac vitamin D-ga oo dumarka qaba hoos u dhac vitamin D-ga waxaa inta badan lagu arkaa inuu aad ugu hooseeyo hormoonkan muhiimka loo yaqaan AMH-ka haddaba vitamin D wuxuu sare u qaadaa hormoonkan loo yaqaan AMH-ka hormoonka AMH hadduu batana waxaa badanayso keedka ugxaanta dumarka ayaa badanayo haddaba dumarka qaba hoos u dhac hormoonkan waxaa u wanaagsan inay ku dadaalaan nafaqooyinka laga helo vitamin D haddaba vitamin D inta badan waxaa laga helaa ilaaska qoraxda ayaa laga helaa oo dumarka waxaa wanaagsan inay aadaan qoraxda doorkii inay aadaan qoraxda ayaa wanaagsan haddaba qoraxda waxaa laga helaa xaddi aad u badan oo ah vitamin D sidoo kale cunooyin laga helo vitamin D ayaa jiro cunooyinkaas waxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran, caanaha, kalluunka iyo ukunta ayaa ka mid ah. haddaba nafaqooyinkaas inay ku dadaalaan ayaa wanaagsan. haddaba vitamin D wuxuu sare u qaadaa xaddiga hormoonkaas loo yaqaan AMH-ka. sidoo kale waxaa wanaagsan dumarka inay iska yareeyaan stresska. haddaba stresska badan wuxuu hoos u dhigaa tayada ugxaanta dumarka iyo tirada ugxaanta dumarka. haddaba walwalka badan wuxuu hoos u dhigaa hormoonkan loo yaqaan AMH-ka. haddaba dumarka waxaa wanaagsan inay iska yareeyaan walwalka oo ay bulshada soo dhex galaan oo meelaha dalxiiska aadaan oo ay iska yareeyaan walwalka ayaa wanaagsan. taasna waxay ka saacidaysaa inay sare u qaadaan hormoonka muhiimka ee loo yaqaan AMH-ka.